عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka salaadiinteena sharafta leh ergada rag iyo dumar observerska inta ka joogta guddiga doorashooyinka heerkiisa kala duwan guddiga heer federaal heer khilaafaad guddiga khilaafaadka guddiga si dhammaantiin saxaafadda ciidamada ammaanka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa senator deeqa xasan xuseen ku soo fadhiyay sanadkii hore 4 sano la soo dhaafay baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkiisa sare sidii shalay codkiina ii siiseen maanta anigoo deeqa ah ku dhashay magaalada Boorama ku koray magaalada Muqdisho nolosheeda inteedii badneed ku qaatay magaalada Muqdisho waxbarashadeeda asaasiga ilaa iyo heer jaamacadeed heerka koowaad ee jaamacadda waxaan ku qaatay magaalada Muqdisho heerka labaad ee masterka iyo post graduate waxaan ku qaatay si distance ah magaalooyinka Uganda iyo waxaan ku qaatay Nairobi University magaalada Nairobi aniga waxaan intii aan shaqeynayay way aragnimadayda runtii 17 sano way aragnimo shaqo ah oo ay ugu horeyso 3 sano oo ka shaqeynay caafimaadka qaybihiisa kala duwan waxaan kala soo shaqeeyay hay'ado kala duwan ay ka mid yihiin ICRC ACF oo dhanka caafimaadkii horumarintiisa kala soo shaqeeyay waxaan kale oo la soo shaqeeyay hay'ado waxbarasho ay ugu horeyso hay'adda Africa Educational Trust oo ah hay'ad waxbarasho oo la soo shaqeeyay 12 sano marka la isku geeyo muddadii aan shaqeynayay xagga waxbarashada runtii waxaan ka soo bilaabay inaan noqdo murabbiyad xanaaniso caruur macallimad waxaan kaloo soo noqday maamulo iskuul aakhirkii waxaan shaqo ka bilaabay hay'adan hadda idin sheegay Africa Educational Trust sida arkaysaan CV-gayga oo ahaa inaan ka soo shaqeeyo arrimaha bulshada in badan ogna xaaladda waddanku marayo iyo dhibaatooyinka bulshadeena ay ku sugan yihiin waxaan 2016 idinku imid inaa codkiina ay siisaan anigoo adeegsanaya way aragnimadaas shaqo waxaan ku guuleystay inaan sanadkii 2017 bishii January odayaasha dhaqanka salaadiinteena sharafta leh codkooda aan ku tago baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ogtihiin aqalka sare waa nagu cusbaa wuxuu ahaa aqal ku cusub dalka waxay ahayd markii ugu horeysay Soomaaliya ay yeelato aqal sare aqalkii sare wuxuu u baahday markaa inaan ka shaqeyno waxyaabaha ugu muhiimsanaayay hadda intii hawsha aad ii igmateen aan isku matalay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan soo qabtay waxa ugu horeeyay in aqalkii yagleelidiisii iyo shuruucdu u baahan yahay xeerarku u baahan yahay laga shaqeeyo si aqalkii uu noqdo aqal bari waxtara maanta marka waxaan aad ugu faraxsanahay aqalkii sare inuu maanta ka duwan yahay sidii uu shalay ahaa oo maanta in ay professoro badan iyo dad badan ay yimaadaan ay macnaha waxay qiimo u yeeli doontaa aqalka sare waxaanse aniga deeqa ahaan haddii allaha awoodda leh idmo aan u soo istaagay mar haddii aqalkii aan ka soo shaqeynay shuruucdiisii xeerarkiisii maanta matalaadii dhabta aheed ay u baahnaayeen gobollada waqooyi in maanta laga shaqeyn karo waayo maanta waxaan haysanaa aqal dhammaystiran oo leh xeroosaadkii wax walba leh shaqooyinkiisii dadkii Soomaaliyeedna maanta way barteen marka anigoo oo eegaya maanta qiimaha uu aqalka sare leeyahay matalaadiisina la yimid in anagina aan ku shaqeyno oo maanta u soo istaago mar labaad in la iigu doorto waayo aqalka sare wuxuu matalaa gobollada siyaasad ahaan waxaan diyaar u nahay haddii mar labaad aan ku guuleysto in aqalkii sare aan uga shaqeeyo dadkii deegaankeenii iyo matalaadii si aqalkii sare xuquuqdii dadkii gobollada waqooyi u helaan ugu guuleystaan xag siyaasi iyo xag dhaqaale waayo meelaha resource-ka lagu qaybinayo shuruucda soo marta aqalka waxa anaga marka u taaganahay haddii aan noo doorataan aniga iyo inta kale ee musharaxiintaaba inaan ilaalino xuquuqdii aqalka sare ee ku lahaayeen maxni ay ku lahaayeen power sharing ay ku lahaayeen gobollada waqooyi Soomaaliland ay ku lahaayeen tusaale ahaan waxa jira guddiyo aqalku leeyahay oo ku shaqeeya waxyaabo badan ay ka mid yihiin guddiga khayraadka oo kale guddigaas khayraadka wuxuu ka shaqeeyaa power sharingkii gobol walba iyo shuruucda soo marta sidii ugu matali lahaa
oo ka shaqayn lahaa maanta guddiga ugu yar waa 5 qof guddigaas wuxuu ka shaqaynayaa sidii maxay ahayd marka shuruucda loo keeno in laga baaraan dego qaabka markaas uu noqon doono goboladii waqooyi wixii ay lahaayeen meeshii ma ka muuqataa waa in matalaadii meesha ka dhex muuqataa oo guddiyadii ka dhex muuqataa guddigan dhaqaalaha kaleeto waxaa la soo mariyaa bajedyada Soomaaliya oo dhan in iyadana laga hadlo marka waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta meeshii uu shalay taagnaa aqalkuna taagneen sanatarada 12 reer waqooyiga ku matala meesha shalay taagnaayeen aanay taagnayn oo maanta ay og yihiin waxa gobolkii uga baahan yahay waxa loo qabanayo maanta haddii aanan qof walba guddigu ku jiro uusan ka soo dhalaalin xuquuqdii lagu lahaayay inay ku matalaan siyaasadda oo ah inay ku ilaaliyaan danihii aqalka danihii gobolada waqooyi ay ku ilaaliyaan aqalkii dhexdiisii shuruucdii ka hadlaan waxyaabo badan oo goboladu u baahan yihiin marka matalaadda aan anaga nalooga baahan yahay ee aan maanta odayadeena dhaqanka aan u soo hor istaagnay codka mar labaad u weydiisanayno waxay tahay in aan helno maxay ahayd matalaadii dhabta ahayd iyo power sharingkii ay u baahnaayeen goboladeeni inaan helo waxaan kaloo aan ku soo darayaa hadduu alla idmo waxa kaloo nalooga baahan yahay qof walba oo aqalka sare maanta ku guuleysta aniga deeqa ahaan haddaan ku guuleysto waxyaabaha aan ka shaqaynaa waxaa ka mid ah in horta marka hore la helo 11 sanatar oo markaas midaysan oo ka shaqaynaya kana shaqayno qofkii nagu matali lahaa oo maamulka noqon lahaa oo gudoomiye u noqon lahaa waayo haddii 11kaas iyo macal gudoomiye wada shaqayn la yimaadaan waxay noqonaysaa in anagiina aan wixina looga baahnaa aan gudan karno marka salaadiinteena sharafta leh ergada qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan maanta idiin soo hor istaagay inaa codkiina igu sharaftaan mar labaad iigu doorataan si inta dhiman dadaalkii aan soo qabanay aan ugu guulaysano oon u qabano hadduu alla idmo waxaan leeyahay marka codkiina insha Allah waa idinka sugayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh